Salaamu calaykum asxaabta kusoo dhawaada channelkeena Somali Kitchen. maantana waxaanu sameysanaynaa nafaqo yar oo fudud. waxaa laga sameynayaa nafaqada liin balmeelmada qolofteeda koraa laga sameynayaa. wataa hadda waan soo xoqay liintii aan soo xoqday waaye. waxaan ku darsanayaa yogurt 2 qaado. waa plain yogurt. waxaa kaloo u baahan tahay malabka yariiskan ku darsanayaa. intaasaan isku qasanaynaa marka hore. si fiican iskugu qas, saddex geli. haddana waanu marsanayaa. shirkaan marsanayaa. hadda gacanta aan ku tusayaa. laakiin weji iyo jirka dhan waa marsan kartaa. moisturizing uu ka dhigayaa yogurtka saliid leh. jirka xataa qallalan aad uu ugu fiican yahay. waad sugaysaa 5 minutes intuu ka qallalo. haddana waa kana waan iska soo dhaqay. haddana mid kale aan sameysanaynaa oo ka kooban huruud iyo malab iyo timir iyo yogurt ayadana. waa huruud halkan 2 qaado huruud waaye. iyo qaado timir ah. iyo yogurt plain yogurt waaye. iyo malab. intaasaan isku qasanaynaa. haddana si fiican isku dhex geli, si fiican u qaso. olive oil waa ku darsan kartaa dadka jirka qallalan, laakiin waad ka maarmi kartaa haddaadan rabin. yogurtka already saliid buu leeyahay, uma baahnid wax extra saliid ah. qofka qaleylka ah iyo qofka saliidda leh labadaba way marsan karaan. gacmihii cilaan ba ii saaran in kuma tusi karo marka gacmaha abaya marsanayso. wakaasa gacantaysaas ku soo baxday. labada gacmood oo kala jeediin ka faa'iideysi wacan.